adduunku waa wax tegay iyo wax maanta taagan iyo wax soo socda. waxa tegay waa laga taariikheeyaa, cibrad baa laga qaataa, duruus baa laga qaataa. waxa taagan iyo waxa soo socdaana talagal looga samaystaa. waxa taagan iyo waxa soo socdana qorshe loo samaystaa. su'aasha maanta inoo munaasibka waxa weeye maxayna la gudboon. wixii dhacay waa dhaceen, lagama hadhi doono, taariikhday geli doontaa, waa laga xisaabtami doonaa. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa intii dulmiga iyo jaraa'imkaas ka qayb qaadatay inuu waxa ay muteen marsiyo adduunya aakhiraba. aakhira ilaahay baa subxaanahu wa tacaala lala sugayaa, isagaana dadka kala saari doona. adduunkana maanta adduunku sidii hore ma aha. adduunku maanta dhibic kastoo meel ku dhacda waana qorantahay, waana duubantahay, waana laga xisaabtamaa. hamoodinina inay adag tahay dadkii jaraa'imkaa geystay inay saa ku tagaan. wax adag maaha. adduunka maanta waxaa laga xisaabtamayaa jaraa'imkii reer galbeedku ay ka geysteen wadammadii ay gumaysteen ee afrika iyo aasiya ka mid ahayd. ilaa maanta waxay bixiyaan dhibaatadii ay geysteen wixii ka dhashay. qaarna ilaa hadda doodeed waa socotaa, sida aad la socotaan in badanoo idinka mida. aljeeriya iyo faransa ilaa maanta waxaa laysku hayaa dhibaatadii faransiisku uu ka geystay dhulka aljeeriya. ilaa maanta doodaasi waa taagan tahay. mararka qaarkoodna waxay gaartaa in cilaaqaadka labada dowladood ay meel adag gaaraan. maanta maxayna la gudboon waa su'aasha loo baahan yahay qof kastoo annaka naga mida inuu qaato oo uu wax ka qoro oo wax ka yidhaahdo oo wax ka diyaariyo oo uu qayb ka noqdo mustaqbalkeenna sidaannu yeeli lahayn iyo sidaannu uga gudbi lahayn xaaladaha ina haysta. wax dhib badanna ma jiro. adduunka wixii soo maroo dhan waa laga gudbaa. dhibaatadayna gaartay dhibaato ka badan dad bay gaartay, laakiin ka gudbay. annakuna insha allahu tacala waa ka gudbaynaa, laakiin asbaab bay leedahay aan wax ka sheegi doonno. maanta waxayna la gudboon oo fiican tahay meel kastoon joogno annaka iyo inta caqliga wanaagsan ee samaha ka talisaaba dhibaatadii meeshaan ka dhacday in la muujiyo. waa laga maarmaan. waa inay muuqaal ku muuqataa, waa inay qoraal ku muuqataa, waa inay maqalna ku muuqataa, si loo muujiyo xajmiga ay lahayd iyo intay la ekayd. si dadkii geystay dhibaatadaasi loo wada dareemo xaqa ama waxa ay mudan yihiin adduun iyo aakhiraba inay maraan. arrintaasi ninkii wax qori karaa ha qoro, kii wax duubi karaa ha duubo, kii suugaan ku cabiri karaa ha ku cabiro. jaraa'imkii halkan ka dhacay muddada dheerna ka socday 8 biloodna ugu darnayd waa inay muuqdaan saa ku tagin. taariikhdii daraawiishtaasaa ku tagtay waa inaan maanta soo noolaynaa. dadkii la laayay, dhibaatadii la geystay, maantaa tan la raacin karaa. maantaa ingiriiskii geystay lala xisaabtami karaa. dadku sidii hore maaha, waxbaa la bartay, adduunkii baa la jiraa. maanta aljeeriya waxay ka xisaabtamaysaa dadkii laga laayay. waxaa maanta loo soo celiyaa dadkoodii la laayay oo meydkoodii u yaalay aljeeriya maanta loo soo celiyaa. waa inay qorshaha ku jirtaa dhibaatadii ingiriisku dalkan ka geystay in laga xisaabtamo, waana laga xisaabtami karaa. taasna waa baraarujin lahaa dadka khaasatan aqoonta u leh arrimahaasi inay u guntadaan. tanina waddadii bay maraysaa. keligeenna ma aha, soomaaliya oo dhan dhibaatadoona kala ka dhacda. dadkii dhibaatadan geystay xataa ehelkoodii way ku sameeyeen, waad ogtihiin. dhibaatada ay deegaanadoodii ka geysteen waa la ogyahay. taana waa in xisaabta lagu daro oo dadka maanta ay u sheeganayaan madaxda waa inay kala xisaabtamaan jaraa'imta ay geysteen.
وإن كلا حساب تمام وعقابته هذا أي مستحستان ترى أنت كما ينقيسن كلي الله سبحانه ودي دجانك سوماليا دبعتها هيستوحى كم ذا جرائم بالجيسنية دبعتها الجيسنية ومد بالجماضية وحكستوحن بالسمينية مش هسلوجة تجيا أرين سحنا ما جيس بيكرد عدي ومد وإني قرأت إن حق ولا هذا قفك مجرم إلا قبته هدي أود أدويننا عالم كأيال لك عشان يسلو قبت مركا dadka jaraa'imka geystay oo la garanayo hebel loo garanayo waa inay cadaalada ka fakanin waa in aan arintaasi la ilaawin sidii wixii hore loo ilaawi jiray qodob horta waxana la gudboon kow kaasa ka qodobka labaad waxa weeye duruusta iyo cibarka ku jira dhacdadii halkan ka dhacday oo bishii labiyo tobnaad 27keedii ka bilaabatay kuna dhamaatay qaybteedii hore 25kii Agoosto tii hore 2000 waxay December 22 kuna dhamaatay 2023 dhacdadaasi waxa ku jirta duruus iyo cibar quraanku iyo sunnada iyo diintu qayb aad iyo aad u weyn baa waxa kamida dhacdooyinkii adduunka ka dhacay in ay soo raraan sababtuna waa cibra fa'tabiru ya ulil absar إلهي مركو كشيكيي نمانكي يهودها لغا ساري مدينة ما ظننتم أن يخرجوا قال سبحانه وتعالى ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم يخربون بيوت فاعتبروا يا أولي الأبصار إلهي وحو كسو قبقبي تدك عبرة له كعبرقات لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار مركي لقى شيء قصدي نبي الله يوسف وحلقوا سو قبقبي كعبرقات تاريخ ذا آدو دير كاحد هل كان يدنا وقضب لبات دروست يعبر كجرة يدنا وإن لموجيا خطبت لقو موجيا شرارك لقو موجيا ورئيسيada lagu muujiyaa qof walba cilmigiisa meesha uu joogo waa laga maarmaan waana sunnadii diinta weey sababtoo ah adigana waxay ku noqonaysaa xanuunkii ku hayay inaad daawo u heshid qof kasta oo sifada ku sifoobana taariikhdu sidaas u qori doonta dadka waxa gaadha iyo masaa'ibka gaadha laba qaybood way qayb waa dulmi iyo joog sidii halkan ka dhacdo kale qaybina waa aafa ilaahay xaqiisa ka timaado oo sida roobabka iyo fatahaadaha iyo dhulgariiriyada iyo wixii la mid ah tan waa midda lagu xisaabtamo way inda Allah wa inda nas xaqqa ilaahay iyo xaqqa dadkaba marka cibrada iyadana waa laga maarmaan in khutbada iyo dadka waxgaradka ah in arinta cibradaasi la muujiyo way waxay noqon doontaa duruus maktabada la dhigo oo ilaahay adduunka intuu ka rogayo annakuna dadkeena naga dambeeya ay akhristaan caalamkuna uu ogaado way noqonaysaa waa inay noqonin tii hore ku macna dhowdahay waa inay noqonin iyaduna cibradaasi wax meesha ka baxa way cibradana aad iyo aad dadka aqoonta diinta laba aad u soo ibraazin karee iyadoo quraanka laga ikhtimaasayo waa in mid loo soo qaato way dhacdooyinkaas 8 bilood oo waxba maalintu ka dhimanay taqriiban ahayd wax aad u yaable oo badan baa dhacay aad u yaable baa dhacay oo dadkuna goobjoog bay ahayn in badan oo kamida inta kalena maqal bay ku aragtay waxyaalihii taariikhda iyo quraanku ugu soo degi jiray qaybo u eg baa halkan ka dhacay guusha ilaahay ciduu siinayo dulmiga ilaahay sida uu baabi'inayo waxyaalaha soo dhan waa cibro way inay saan ugu marto ma aha in arin caadi ma aha marka iyadana cibradaas waa in aad looga faa'iideysan dadku ma ilaawaan waaniga idin sheegaya dadku Soomaalida hadda ma garanayo in dawladihii jiray ay ka shaqeeyeen in kale waxaan maqli jiray Talyaanigu wuxuu bixiyaa daanadii weera dhibaatadii dagaalka uu ku geystay buu bixiyaa baan maqli jiray ما قاند wax qorshaysan iska haydi wax xaqiisa kayma anaga waxaan noo ka baahan wax qorshaysan aan la dhimaadno baan noo ka baahan
waxaana loo ka baahan yahay horeyna way u dhacday haddana aan ku soo celcelino xamdiga ilaahay subxaanahu wa tacaala la in shakartum la aziidannakum ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmada uu noo galay waa in xamdigeeda la badiya waa inaan la kibrin waa inaan la qooqin af iyo adinba waa inaan laga qooqin waa in aan ogaanaa wax kasta oo wanaagsan ilaahay baa inoo qadaray oo inoo meelmariyey wax kastoo sharo inaan ka qabsoomayna ilaahay baa ina ka qabtay saas waxay keenaysaa ilaahay inaan ku xamdino subxaanahu wa tacaala xamdigaas waa in aad loo badiyaa oo wax aad qof kastaaba u yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay dhibaatadii dhibka badnayd ina ka qaaday waa inuu qofku ku celceliyaa nicmooyinkiisoo dhanna isagoo uga xamdinaya waa in la qadariyaa oo qiimo loo yeelaa qof kastoo qiimo agteenna ku leh ixtiraamna la siiya waa laga maarmaan arrintaasna waxay keenaysaa qofku inuu ku dhiirado inuu dadkiisa wax u qabto inuu naftiisa u huro inuu maalkiisa u bixiyo inuu dulmiga ka rido haddaan la qadarin dadka noocaasa waxay noqonaysaa in waddadaasi ay soo cayhirsantay noqonayso waxaa laga maarmaana bulshadeenna inaannu ku tawciyayno waxa khayrka ah waxaa laga maarmaan ah inaan ka shaqayno mujtamaceenna saanu islaaxin lahayn dagaallo markay dhacaan dhibaato badan baa laga dhaxlaa dhibaatadaas haddaan la islaaxin hadhow dhibkeedu anugu ku soo noqonaya islaaxaasna waa in loo guntadaa risaaladan ama fariintani waxay ku socotaa inteennaan masaajidka fadhida iyo inta kaloo maqli doonta qof walbaaba waa inuu meeshiisa ka qabtaa wixii xumaanana uu qabtaa khayrka taasaannu ku helaynaa taasaana ilaahay khayrkayna ku siiya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar watu'minuuna billah waxaad khayr ku yeelateen oo ummadaha u khayr badnaateen macruufkana waad fartaan munkarkana waad iska reebtaan ilaahayna waad rumaysaan ilaahay in la rumeeyaa ka weyn wax kasta laakiin waxaa la hormariyey qodobkii kaloo ahaa in waxa xunna layska qabto samahana laysfara ayaa laga hormariyey liajli ahmiyadda si loo muujiya qodobkaasi uu leeyahay waxaa laga maarmaan ah in aan islaaxinno qayb kasta oo bulshadeenna ka mid ah ummaduhu markay dagaallada galaan dhibaato badan baa ka timaada dhibaatadaasi ayaan noogu soo noqonin waana ku dadaali karnaa waana leenahay dadkii hawsha qaban lahaa oo aqoonteeda lahaa ama dareenkeeda lahaa waxaa laga maarmaana safka iyo isku duubnida in la ilaaliyo iyadana waa laga maarmaan yacni maxaa maanta inoo yaallay ka mid tahay qodobada noo yaalla oo la rabo qof kastaaba inuu waajib u qaato oo ka howlgalo ama ciddii maamul inoo ah ama ciddii inoo ah dhaqan ama ciddii kutla ah oo maamul haysta ama si kale ah ama fardi kastaaba waxaa laga rabaa naftiisa iyo khayrkiisba inuu ka shaqeeyo midnimada ummaddan waana sababta ugu weyn oo dadka ilaahay nasriga ku siiyo kaa weeye walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waactasimuu bixabli illaahi jamiican guusha ilaahay dadka waxa uu ku siiyo waxaa ka mida midnimada ayaa kowka ah ama qaybaha ugu waaweyn ah qof kastoo annaka naga mida waa muhiim waana in la siriya qadaridiisa xataa hadduu khaldan yahay waa in khaladkiisa si wanaagsan looga saxo wey aan lahayn xagtin aan lahayn waa in looga saxo wey sababtoo qof kastaaba waa muhiim mujtamaca qof kastaaba waa u muhiim hadduu khaldan yahayna waa in khaladkiisa si maaragtay aan xagtin lahayn loo saxo wey waxaan maqlayaa dad laga yaabo qof khaldan inay si xun ula hadlaan inaan hadal munaasiba ayan ahayn qof aan qiimo lahayni ma jiro qof kasta qiimuu inoo leeyahay ha yaraado ha weynaado rag ha noqdo dumar ha noqdo sidaa daraaddeed qof kastaaba ixtiraam buu leeyahay khaladka uu leeyahayna xagtin la'aan waa in lagu saxa waxaa maanta waxyaalaha muhiimka inoo yaalla ka mid ah inaannu iskacan qabanno dhaqaalahayna waa burburay dhibaato badan baa ina gaartay waxyaalaha loo baahan yahay horeyna aanu ugu guulaysannay oo ilaahay nagu galladaystay iskacan qabadka weeye iyadana waa laga maarmaan waxaa laga maarmaana iyadana in la daraaseeyo dhibaatadan maxaa sabab u aha sababta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir waxa idinku dhaca waa waxaa idinku galabsateen weliba iyadoo wax badan laydinka dhaafayo waxaa laga maarmaana inaan daraasayno dhibkani muxuu ku dhacay sax cadowga soo duulay ee dhibaatada inoo geystay khalasta aan lahaana xaq uma u lahayn waxa uu sameeyey xaq uma u lahayn umana yeelan doono marra
laakiin maca daalika waa inaad adigu xisaabtanto oo tidhaahdid xaggee lagaaga yimi maxaa dhinacaaga adiga ka yimi yadana waa laga maarmaan wey maxaa yeelay ilaahay qofna ma dulmiyo marka saa daraaddeed waxaa laga maarmaan ah in iyadana aanu xisaabtanoo la yidhaahdo ma aha inaad maalin kasta tidhaahdid hebel baa saa yeelay waa inaad tidhaahdid maxaa iga khaldamay waa inaad su-aashaada ku dartid waa inay ka muhiimsan tahay qofka ku dhibaataynaya waxaa ka muhiimsan dhibaatada adiga gudahaaga ayaa ka muhiimsan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku soo gebagabaynayaa aayad qur-aanka ka mida ama laba aayadood isa saaran oo uu kaga hadlayo dadka dulmiga sameeya sida uu yeelayo iyo dadka dulmiga laga qaado waxa laga rabo waadix soo maaha waa suuradaan hayno daalimiin ummaddan inay gumaadaan oo burburiyaan ku talagalay ilaahay waxbuu ka yidhi qoladii dhibaatadaasi ku dhacaysay markii laga qaadana ilahay waxbuu ka yidhi bal aayadahan ila dhegaysta acuudu billahi min ashaytaan rajiim walaqad ahlakna alquruuna min qablikum lama dalamuu waxaannu halaagnay ummado badan oo idinka horreeyey nebigaa lala hadlay calayhi salaatu wasalaam goormaa la halaagay lamaa dalamuu markii ay dulmiga sameeyeen baa la halaagay wajaa'athum rusuluhum bilbayinaati wamaa kaanuu liyu'minuu kadalika najzi alqawma almujrimiin rusushoodii baa u timi xujooyin cadaad bay ula timi way garab mareen sidaasaannuna u abaalmarinaa ilaahay buu dadka mujrimiinta laba qodob oo aad in loo kor istaagaa ku jira qaybtaa hore lamaa dalamuu dadkaas dulmigay sameeyeen baa lagu qabtay abaalkeediina waa la mariyey qoladii marka dhibka laga qaaday baa loo yimi uma jacalnaakum khalaa'ifa fi اlardi min bacdihim linandura kayfa tacmaluun markaasaannu idin dhaxal siinay kuwaa markii la halaagay oo meesha laga saaray ayaannu dhulkii idin dhaxal siinay maxaa la rabaa marka linandura kayfa tacmaluun bal inaannu eegno waxaad samaysaan maanta annaka marka maxaa inoo yaalla ilaahay wayna eegaya dadkuna wayna eegayaan ma shar baan ka talin doonnaa ma khayr baan ka talin doonnaa waa inaan khayrka ka talinnaa waa inaan cadaaladda ka talinnaa maxaa yeelay haddaanan khayrka iyo cadaaladda ka talinin qaybtaa horaan gelayna cadhadu hadday xuduuddeeda dhaafto waa khalad dulmi iska celintu hadduu xuduuddiisa dhaafo waa khalad marka maanta annaka waxaa inoo taalla ciddii kale oo dulmi gaysatay ilaahay baa la xisaabtamay waana la xisaabtamay ta maanta noo taalla annaka wax waynu nandura kayfa tacmaluun maxaa maanta annaku aan samaynaynaa waa inaan waxaan ka soo sheekeeyey iyo in badan oo ka mida oo la raba in lagu daro qaa'imada iyo liiskaas baa inoo yaalla oo ah intaa faraha badan iyo inta aad ku dartaanba أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم عباد الله صلوا على رسول الله كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا اللهم اجعل آخرتنا خيرا من دنيانا اللهم